madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa maanta waxay booqasho ku kala bixiyeen qaybo ka mid ah caasimadda waddankani jamhuuriyadda Djibouti. booqashadan ayaa dhinaca Djibouti waxaa hogaaminayay wasiirka waqaafta arrimaha diinta ee waddankani Djibouti Xamuud Cabdi Suldaan iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta dhaqanka boosta ee isgaarsiinta Cabdi Xuseen Axmed. goobaha ay tageen ayaa waxaa ka mid ahaa dekadda weyn ee caalamiga ah ee waddankani jamhuuriyadda Djibouti kaasoo ay kula kulmeen sida dekadaasi ay u shaqeyso iyadoo halkaasina lagu arkayay horumarka ay samaysay caasimadda jamhuuriyadda Djibouti boorka ku yaala. waxaana sidoo kale loo dhaqaaqay xarunta ka caagan canshuuraadka ee loo yaqaan free zone-ka halkaasoo ay yaalaan kumanaan konteenaro oo ah kuwa ganacsiga oo u kala guusha wadamada geeska Afrika iyo qaybo ka mid ah Aasiya. waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu booqday dekadda Dooraale oo loo yaqaan boorka Dooraale halkaasoo uu kula kulmay arrimo ay ka mid tahay dhinaca dejinta iyo rarista qalabka kala duwan ee ganacsiga. waxaa sidoo kale madaxweynuhu u hambeliyay shaqaalaha halkaasi isagoo oo sheegay in shaqada ay Djibouti u hayaan ay tahay mid Soomaaliya loo hayo. intaa kadib waxaa socdaalkii uu boqolay dhinaca Djibouti Telecom ay ku leedahay xarunta deegaanka la yiraahdo Haramuus halkaasoo aan kula kulannay qalabka fiber optic ee badda dhex mara kaasoo ah qalab loo adeegsado horumarka taleefanada iyo internetka caalamka. waxaana qayb lixaad loo ka qaatay horumarka dhinaca isgaarsiinta. agaasimaha guud ee Djibouti Telecom oo uu waramayay madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inuu gaaro gudaha waddanka Soomaaliya haddana la gaarsiiyay qaybo ka mid ah maamulka Somaliland. madaxweynaha intaa kadib waxa uu booqday safaaradda Soomaaliya waxa uuna kula kulmay madaxda halkaasi joogta isaga oo maanta markii ugu horeysay xariga ka jaray safaaradda Soomaaliya oo muddo burbur ku jirtay mar dhaweydna dayactir aad u wanaagsan lagu sameeyay tan iyo markuu la wareegay gacan ku haynta safaaraddaasi Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen safiirka iminka gacanta ku haya. madaxweynuhu wuxuu u hambaliyay madaxda safaaradda isaga oo sheegay in Djibouti ay tahay walaalka koobaad ee Soomaalidu ay leedahay. ay furitaankeedu wuxuu ahaa dib u habaynta iyo dayactirka muxuu ahaa dawladda Djibouti ay noogu deeqday oo ay ku samaysay ayaan dib u furno xarig uga goynay laakiin safaaraddu way shaqaynaysay waana joogeen mumthiliinta dalka halkan muddo dheer ilaa intii 22 sano dawlad la'aanta Soomaaliya ka jirtaba way joogeen laakiin haatan dayactirka iyo dib u habaynta dawladda Djibouti ay nagu kaalmaysay oo la dayactiray oo dib loo habeeyay furitaankeedii ay ahayd aniga maanta waxaan sameeyay marka soo dhaweynta iyo maxaan ku raadayay muqaabalada iyo farxadda dadka reer Djibouti oo dhan ay noo hayaan waan ka mahad celinaa iyadana aad u mahad. sidoo kale safiirka Soomaaliya asna halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay dawladda Djibouti iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan idinka mahad celinayaa ka soo qaybgalka aad ka soo qaybgasheen furitaanka safaaradda dib u furidii markii la dayactiray kadib safaaraddu awal way furreyd laakiin dayactir ma lahayn. dayactirkan cusub waa intii hadda marxaladan dambe idinkuna qalabka warbaahinta iyo TV-yada waa idin mahad celinaynaa dadaalkiina iyo sidaad u dadaasheen inaad dabooshaan booqashada madaxweyne Xasan Sheekh. Mikael Cabdirashiid Bare, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Djibouti.